Sheekh Maxamed oo kamid ah culimada reer Soomaaliland ayaa ka hadlay doorka guddiga wanaag farista iyo xumaan reebistu ay ka qaateen ka wacyigelinta bulshada arrimaha dhaqan xumaanta iyo kaalinta wanaagsan ee bulshada kaga jiraan guddigaasi waxaana ugu baaqay guud ahaan dadweynaha reer Soomaaliland inay la shaqeeyaan guddiga wanaag farista iyo xumaan reebista in badan baan halkan iyo meelo kaleba ka xusay guddiga wanaag farista iyo xumaan reebistu waa waxyaabaha ummadani dawlad iyo shicibba ay ku talaabsanayso ku socotay Ilaahay inagu badbaadiyo waayo waxay u banbaxeen oo banaanka ugu baxeen wax inteena badan aynaan ku hawlanayn warna aynaan u hayn difaaca Ilaahay diintiisa ilaalinta arkaanul iimaanka ayda Ilaahay iyo rasuulka iyo diinta Ilaahay la caayayo la dagaalankeeda iyo soo qabashadeeda iyo wax ka qabadkeega ay u soo banbaxeen waa arin culus waxay u banbaxeen wax ka qabashada dhaqan xumada iyo akhlaaq darrada iyo isla joogta iyo hablaheen iyo inamadeena banaanka iskula baxa odayaasha iyo dhalinyartaasi waxay u kaceen oo u gacan banaanaadeen oo beelahdoodii iyo danahoogii uga tageen arinta caamka ay noo wada taala waxaan in badan xusay waxa laga yaabaa sirta waxyaabaha aynu ku badbaadanayno dadka dheerahay intaasi waa waxyaabaha ugu waaweyn ee aynu ku socsoconno waxa waajib marka ay nagu dawlad iyo shicibba in la iska rabtaago wax lala qabto waa guddi rasmi ah oo dawladeena ka waxa weeyaan ka diiwaan gashan oo wasaaradda awqaaftu ay mas'uul ka tahay dhinaca kale sheekha ayaa ka hadlay kaalinta hoggaanka sare ee Bilayska Soomaaliland oo ka qaatay fidinta arrimaha khayriga waxaana uu sheegay inuu yahay hoggaanka Bilayska hoggaanku dayasho mudan marka la eego arrimaha wanaaga iyo khayr kale ay ka dhex wadaan saldhigyada iyo talisada kala duwan ee ciidamada Bilayska jananka Bilayska cusub hoosna waan ugu duceeyaa korna waan ugu duceynayaa maanta jananka cusub ee Bilayska loo dhiibay Ilaahay tabaaraka wa tacaala magaciisa iyo darajadiisa iyo arrinkiisa Allah kor yeelo waxa fiican qof wanaagsan Ilaahay markuu arrinkeena u dhiibo intaynu ku faraxno inaynu u gargaarno garab iyo gaashaan baa u noqono jananka cusub isaga laftiisa wanaag faris iyo xumaan reebisa wali intaan garanaya maan arag janan intuu xirayaha Bilayska soo dhex taagay yiraahda ka wacyigeliya salaad la'aanta ka wacyigeliya dhaqan xumada ka wacyigeliya balwada ugu ballan qaada quraanka kii idin dhigi lahaa keensada haduu idinka mid yahay ana gunaynayo wax siinaya hadii la idinka waayana ana banaanka ka keenayo qaramaynaya waa nin shaqadii culimada iyo wanaag farista iyo xumaan reebista haya Ilaahay dambigiisa Allah dhaaf Ilaahay booskaana ha ku asturo hana ku raajiyo ninka wanaagsan waa loo duceeyaa waana lagu farxaa anigu shakhsi ahaan qof ahaan iskuma naqaan waxa weeyaan de aqoonta guud inuu madax inoo yahay mooyaane haddana hadiya habeen wallahi waan u duceeyaa waxaan ugu duceeyaa shaqadan anigu hayeybo hayaa inuu dadka wanaaga faro oo xumaha u diido oo waxa weeyaan dadka wanaaga sameeynaya uu garab iyo gaashaanba u noqdo de waxa weeyaan waa wax mu'min kasta qalbigiisa farxad gelinaya Ismaaciil Cabdi Xasan